dowladda Ruushka ayaa waxay sheegtay in cunaqabatayntii Mareykanku uu ku saaray Ruushka eedaynta la xidhiidha sumeynta basaas hore oo Ruushka u shaqayn jiray iyo gabadhiisu ay dib u dhac ku keenayso horumaradii laga sameeyay wadahadaladii dhexmaray madaxda labadaasi wadan. Dmitry Peskov afhayeenka aqalka dalkaasi Ruushka looga arrimiyo oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in go'aanka noocaasi oo kala ah oo ay Mareykanku ku qaadaan uu yahay mid saaxiibtinimada labadaasi dal sii xumeynaya. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa cunaqabatayntan cusub waxay ku dhawaaqday Arbacadii iyada oo ku micnaynaysa inay jawaab u tahay weerarkii sunta ahaa ee lagula kacay Master Sergey oo da'diisu ahayd 66 sano iyo waliba gabadh u dhalay oo 33 jir ahayd kuwaasi oo lagu sumeeyay dalka Britain bishii Maarch ee sanadkan.